Moneygo waa mid ka mid ah website-yada kuu sahlaya inaad Bucket Option lacag ku shubato. Haddii aad Bucket Option-kaaga tagto kadibna aad tagto qaybta finance-ka, waxaad arki kartaa e-payment-yadan ay ku qoran tahay kan Moneygo ay ku qoran tahay. Lacagta ugu yar ee la dhiganayaa waa $5. Marka waxaan ku tusi doonaa website-kan Moneygo. Moneygo sidoo kale wuxuu la mid yahay sidii Perfect Money-ga. Waxa kale oo lacagta ku soo dhigaysa Ether app. Qof Moneygo isticmaala ayaad lacagta u diri kartaa adigoo tagaya ayaad u diraysa lacagta Moneygo kugu jirta transfer. Xaggan waxaad gelinaysaa Moneygo user-keeda ama lambarkan ayaad gelinaysaa, kadibna lacagtaad gelinaysaa, kadibna sidaas ay kuugu dhacaysaa. Assalaamu calaykum asxaabta ku xidhan jeel xirfad ku soo dhawaada muuqaal cusub. Halkan waxaa ku soo gudbinaa xirfadaha online-ka ka bannaan kuwaas oo lacag ka samayn karto. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad hore noola joogtayna muuqaalkan like saar soo gaadha asxaab badan. Soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Step 2 Moneygo ayaan samaysan doonaa inaga oo raaci doona linkiga kadibna marin doona KYC-guna wax kale maaha, waa ama passport waa inaad haysato, ama waa inaad ID card national haysato, ama waa inaad license haysato, document-na aad raaciso. Document-kaas waad ila soo hadli kartaa adiga oo soo raacaya qaybaha description-ka linkiyada yaalla ayaad ka eegi doontaa. Xaggaas ayaad igala soo hadli doontaa linkiga yaalla ee Telegram channel-keena weyn. Xaggaas ayaad igala soo xiriiri doontaa. Inta badan aan lambarkayga soo geliyaa. Marka hadda waxaan bilaabi doonaa Moneygo, waxaananu raaci doonaa linkiga inoo yaalla description-ka muuqaalka. Marka xaggan ayaad ku dhufanaysaa linkiga Moneygo waa kan. Xaggan ayaad ku dhufanaysaa linkiga Moneygo. Marka linkigan ayaad ku dhufanaysaa. Linkigan marka aad saa u furto wuxuu ku geyn doonaa website-ka runta. Hadhow haddii aad website-ka baadho waxaa dhici kara inaad aragto website kale oo la mid ah Moneygo, laakiin linkiga ayaa si toos ah u geynaya. Ha ka baydhin linkiga raac. Marka wajahdan inoo soo dhigo waxaana looga baahan yahay kaliya wajahadani waxay ka turjumaysaa inaan isdiiwaangelino. Xagganna waa login markaan hore u lahayn. Xaggan ayaan ka login garaynana. Registration baan hadda taaganahay. Halkan waxaan ka dooran doonaa lacagta anagu ku isticmaali doono oo lacagta dollarka. Xaggan waxaan gashan doonaa Gmail cusub. Xaggan waxaan gelin doonaa Gmail cusub. Gmail-ka marka aan geliyo code ayaa loogu diri doonaa Gmail-ka. Code-kaasna waxaan ka baari doonaa u isqariyaa code-kaas meel gaar ah oo aan ku tusi doono ayaad ka arki doontaa code-ka. Xagganna waxaad gashan doontaa password. Xagganna mar kale password-ka ayaad ku celin doontaa. Marka intan ayaan buuxinayaa, labada password ayaan raacinayaa. Kadib xaggan labada tick ayaad saari doontaa. Marka waxaad caddayn doontaa inaad rubad hayn ee aad tahay human. Wuxuu ku tusi doonaa kabsha yar ayuu kuu soo dhigayaa. Kabsha yar ayaad saxaysaa, kadibna registrate ayaad leedahay. Xaggan accept ayaad iska oran kartaa. Marka iminka qaybtaas ayaan buuxin doonaa. Marka aad Gmail ayaan gashaday, xagganna password adag ayaan gashaday. Soo arkaysaan 8 chart ayaan mariyay, highlighting letter ayaan ku daray, one number ayaad ku dari kartaa. Marka saa u adkayso cidna ha iskaga sheegin xogtaada. Kadib xaggan taabo oo agreed, kadib xagganna confirmed, kadib xaggan button-kan fur. Button-kan su'aal ayuu ku weydiin doonaa. Haddaad garan weydo su'aalahaas waa lagugu soo celcelin doonaa. Hadda su'aashan ayaa la weydiiyey. Marmar qoraalkan wuu adkaadaa. Marka haddaad fahmi weydo qoraalkan ChatGPT u dir, kadib isagaaba kuu sheegaya ka dooro guri. Ani hadda waxaan leeyahay kuwan kala dooro alaabta. Kuwee baa halkan laga keenay alaab xaggan oo kale kuwa xaggan yaalla iyo sawirkan aad isku eegaysaa. Kuwee baa lagu gadaa halkan. Kulley muuska ayaa lagu gadaa. Marka haddaad garan weydo waa lagu bedelayaa. Alaabtaas buu sheegayay meesha lagu gado. Kulley cagaf laguma gado. Kadib sidii ayuu xaqiijiyay, kadibna registrate ayaan leeyahay. Marka halkan aan taabto code ayaa la igu diri doonaa. Gmail-kan aan gashaday code-kaas ayaan soo qoran doonaa. Haddaba arkaysan wuxuu ku leeyahay code ayaa loo diray Gmail-ka aad gelisay. Gmail-ka ayaan code-kii ka raadin doonaa. Waxaad arkaysan saacad markay ahayd intaas oo code-na loo soo diray. Marka code-kaas ayaan ku dhufanaa oo ka yimid Moneygo. Kadib marka aad ku dhufato hadduu isqariyo xaggan ku dhufo meelahan ka dhex raadi. Halkan spam ku qoran tahay ka dhex raadi. Marka code-kan ayaan qaadan doonaa. Waxaan gelin doonaa halkii Moneygo. Halkan ayaan gelin doonaa code-ka. kadib markaan koorka gelino continue ayaan oranaa
shabakad cusub ayuu na tusi doonaa kadib shabakada marka saa inoo tuso toos wuxuu noo geeyey oo inoo sameeyey Manigo ayuu inoo sameeyey Manigo anigu markaa akoon hore ayaan lahaa labada akoon mid uma verify ka dhigan doonaa hadda xaggan eegto sidan halkan waa profile-kii xaggan waa marka aad lacag ku soo shubanayso marka aad lacag ku soo shubanayso koodhkan ayaad qoraysaa 313623 ayaad qoraysaa marka lacag la baxayso transfer baad leedahay either app koodii kanoo kalaha ayaad xaggan gashanaysaa kadibna lacagta xaggan gelinaysaa kadibna transfer baad leedahay lacagtaas either app bay ku dhacaysaa either appna set ayay kaaga soo dhigayaan ama waxay kaaga soo dhigayaan wixii kolba adigu aad rabto ee aad ku dul dalbato exchange-kooga either app marka qaybtan waan u tegi doonaa qaybtan waa supportkii haddii wax kaa qaldamaan waxaad la hadlaysaa shirkaddan Manigo oo kale lacag haddii ku dhagto verified-ka oo kale haddii uu wax kaa xumaado ku yar celceli waad ku celcelinaysaa kadibna sidaas ayaa lagugu soo aqbalayaa marka hadda waxaan marin doonaa verified-ka haddii aad doonayso markaa inaad verified ka dhigto ama verification ku samayso xaggan ayaad gelin doontaa laakiin xaggan waxaad ku jira exchange-yada ay xaggan waxaa ku jira dhammaan exchange-yada ay xiriirka leeyihiin xaggan haddaad ku shato ay la shaqeeya Manigo marka xaggan ay kasoo bixi doonaan dhammaan kuwa la shaqeeya Manigo marka waxa kamid ah oo kale either app baa kamid ah touch play ayaa kamid ah sahal baa ku jirta marka dhammaan badel buy oo kale waa Soomaali sahal exchange baa Soomaali kamil exchange waa Soomaali qaar badan oo Soomaali ayaa ku jirta marka haddaan home-kii ku soo noqono waxa kale oo xaggan ka arki kartaa kuwa ay imika wada shaqeeyaan haddaad tiraawi darow xaggan eeg waxa ka soo bixi doonaa kuwii aan sheeganay kamil xaggan ay ku soo dareen marka iyagaad mid kusii dhufan kartaa laakiin qaabkan transferka ayaa ugu fiican marka aad doonayso hadhow lacag la baxdo marka profile-ka ayaan tegi doonaa si aan verified uga dhigno markaan doonayno inaan verified ka dhigno xaggan waxaan gelin doonaa ID card-keenii dhalashadii sida kan shaashada ka muuqda oo kale ama passport wixii aad haysato ayaa verified ku odhan doontaa xaggan waxaad gelin doontaa ID card-ka adigoo gacanta ku haya oo sida wejiga afkiisa ugu qabanaya sida sawirkan aad arkayso ayaad gelinaysaa xaggan kalena waxaad gelin doontaa proof address-ka document-ka ayaad caddayn doontaa marka aniga mar dhowyd baan yar geliyo ay soo diiday haddana waa markii labaad ee aan ku celinayo marka xaggan waxaan soo gelin doonaa document-ka xaggan waxaan soo gelin doonaa kan gacanta ku hayo xaggan kalena waxaan soo gelin doonaa marka proof address-ka waraaqdii ee address-ku ku qornaa ayaan soo gelin doonaa marka doonayso haddaba inaad geliso halkanaad taabanaysaa kadib wuxuu ku geynayaa file-kaagii meeshii haddii aad mobilka isticmaalayso file-ka mobilka ayaa la tegi doonaa sidoo kale meel kasta file-kii ayaa la tegaya marka waan gelin doonaa kadibna dib ayaan u duubi doonaa marka saasoo kale u soo geliso iska ilaali qoraal aniga lambaraha ku qoran screenshot oo kale yaanu halkaa ku qornaan magaca iskaga qora haddaad doonto marka xaggan ayaad leedahay markaa san ayaad leedahay kadib san markaad geliso waxaad gelin doonaa oo kale aan raacin doonaa qaybtan wuu ogolaaday qaybtaas laakiin qaybtan address-kiina xaggan ayaan gelin doonaa xaggan ayaan taabanaya waraaqda ayaan soo gelinaya waraaqdan anigu waan ku samayn karaa haddaad u baahan tahay laakiin marka hore goobaha lagu bixiyo ID card-ka dhalashada oo kale passport-ka goobaha waddanka aad joogto ama magaalada aad joogto ayaa tagaysaa kadibna waad soo samaysanaysaa anigu ma sameeyo ID card national dhalasho iyo passport ma sameeyo marka laakiin address-kan waa ku samayn karaa sida arkaysaan xaggana waxaan geliyey address-kii marka proof waa waraaq ay ku qoran yihiin lambarkaygan aan ku sameeyey gmail-ka aan ku sameeyey xaggan waxaasaa ku qoran Manigo gmail-ka aan ku sameeyey markaas aan review ayaan leeyahay marka waxoogaa kadib waa la eegi doonaa kadibna waa la iisoo jawaabi doonaa xaggana waxaa laga dhigi doonaa verified ayaa laga dhigi doonaa kadib marka la iisoo jawaabo xaggaas ayaan kasii bilaabi doonaa soo arkaysaan Manigo waana la soo aqbalay verification-kii ID card-keenii confirm baa la yidhi footadii iyo sawirkii aan gacanta ku hayay ee aan horeyba idiigu sheegay na confirm baa la yidhi document-keenina verified baa laga dhigay soo arkaysaan
marka hadda wuxuu diyaar u yahay inaan either app tago kadibna aan lacag ku soo shubto xaggan ayaan lacagta ku soo shuban doonaa userkeenan ayaan lacag ku soo shuban doonaa